بسم الله الرحمن الرحيم laconic macnaheedu waxa weeyaan hadal kooban qui s'exprime en très peu de mots yacni waxay ka dhigan tahay waa qof hadal yar oo gaaban oo saa u sii badnayn idhaahda hadal yar oo si fiican aan u sii badnayn qofka ku dhahda ayaa la dhahdaa wuxuu yidhi tusaale il m'a fait une réponse laconique wuxuu i siiyey jawaab yar oo gaaban yacni wax badan laga fahmayn wax badan sii macnaynayn ayuu i siiyey il m'a fait wuxuu i siiyey une réponse laconique marka laconique macnaheedu waxa weeyaan hadalka yar ee gaaban ee saa u sii badnayn dad baa jira saas oo kale hadalkoodu uu gaaban yahay hadal badan iyo maxaan ku rahdaa dacwad badan male jawaab yar oo gaaban hadal yar oo gaaban dad saa u hadlaa jira markaas waxa la dhahdaa laconique il m'a fait une réponse laconique wuxuu i siiyey jawaab yar oo gaaban un waxay ka dhigan tahay ku dhex jira yacni la socda oo aan ka hadhin yacni un aan kala hadhin oo isla socda bay ka dhigan tahay wax isku mida ama isku dhex jira macna waxaa lagu yiri qui est lié inséparablement à quelque chose yacni wax la socda oo aan ka hadhin tusaale wuxuu yidhi les risques est inhérent au métier de pompier les risques dhibaatadu iyo mahalistu ee inhérent wayba la socotaa au métier de pompier shaqada ragga pompiyega ee dabka baktiya ragga dabdabiska shaqadooda iyo dhibaatadu way isla socotaa yacni waa dad mar walba ku dhex jira dhibaato halis bay ku dhex jiraan waa dad dab baktiyanaya oo meelo dhibaato ka dhacday tegaya iyaga noloshoodaba halis ku jirta marka shaqadooda iyo dhibaatadaasi iskama harayaan marka inhérent waxaan waxba ka harin oo la socda bay ka dhigan tahay les risques dhibaatadu iyo halistu ee inhérent way la socotaa oo kama harayso au métier de pompier shaqada pompiyega kelmadan kale waxa weeyaan vindicatif waxay ka dhigan tahay argoosi badan yacni qof calool xumo leh oo argoosiga badan wuxuu yidhi qui a un fort désir de vengeance yacni waa qof inuu mar walba argoosto ama calool xumo ay ku jirto qofka waxa la dhahdaa vindicatif tusaale wuxuu yidhi il est très vindicatif il n'oublie jamais une insulte ninkani waa nin argoosi badan oo calool xumo badan mana iloobo cayda ninkan cayda ma iloobo waa nin argoosi badan oo calool xumo leh kelmadan kale waxa weeyaan consensuel waxay ka dhigan tahay isku raacsan lagu heshiiyey amba la ogolaaday yacni macna wuxuu ka yidhi qui accepté consenti waa wax la ogolaaday oo la waafaqay marka consensuel la waafaqay la ogolaaday bay ka dhigan tahay tusaale wuxuu yidhi une liaison consensuelle xidhiidh la ogol yahay yacni dad baa jira xidhiidh bay leeyihiin oo ka dhexeeya hadduu noqdo xidhiidh jacayla iyo hadduu noqdo xidhiidh ganacsiya iyo xidhiidhku doona ha noqdo yacni labadaa qof xidhiidhkay sameeyeen waa xidhiidh ay isku ogol yihiin oo iswaafaqsan yihiin lama odhan karayo maxaan ku rahdaa uu qasbay iyo may ogoleen iyo waxa ma jirto way is ogolaayeen marka tusaale wuxuu yidhi une liaison waa xidhiidh consensuel la is ogolaa oo la is waafaqsanaa bay ka dhigataa tusaale kale wuxuu yidhi nous avons trouvé une solution consensuelle pour le planning waxaan u helnay oon garanay oon wada gaadhnay xal la wada ogol yahay si loo sameeyo balaaniga bisha yacni balaaniga bisha ee shaqaalo ugu shaqaynayo waxaa laga gaadhay xal dadkoo dhan ay wada ogolaadeen saa bay ka dhigan tahay kelmadan kale waxa weeyaan exhaustive waxa weeyaan qui traite un sujet totalement yacni waxay ka dhigan tahay dhammaystiran uu dhan yahay waxba ka maqnin tusaale wuxuu yidhi les médecins docteurku a fait un examen exhaustive du patient docteurku wuxuu sameeyey maraamar amba baaritaan dhan oo wada kaamil ah ayuu macluumaadka iyo qofka buka ka qaaday uu wada eegay gebigiisaba equivoque waxay ka dhigan tahay qui n'est pas clair confus yacni midmadow ku jiro aan caddayn weli aan kala saarsanayn ayay ka dhigan tahay shaki ku jiro
tusaale wuxuu yidhi il a laissé un message équivoque sur mon bureau wuxuu ii dhigay oo uu iiga tegay birooga fariin aan weli kala caddayn fariin ku jiro maaragtay mid madow ama shaki ku jiro oo saxa oo meel loo raaci lahayn buu ii dhigay birooga marka équivoque aan weli aan caddayn sida matalan qof khudbad buu jeediyey khudbadiisa waxa lagama fahminba waxba waa laga soo saari waayey waxba waa laga garan waayey aduu sheegay waa laga fahmi waayey waa équivoque weeyaan tusaale kale wuxuu yidhi kelmadan kale waxaa sheegaysaa immuable waxay ka dhigan tahay qui ne change pas aan isbedelin wax aan isbedelin oo yacni midabkiisana bedelin dabeecadiisana bedelin aan isqayirin wax sidiisii haanaya wax saasa oo isbedelin ayaa la sheegaya tusaale wuxuu yidhi il est immuable dans ses volontés ninkan go-aankiisa iyo rabitaankiisa iskama bedelo waa qof go-aan adag waa qof wuxuu doonaya garanaya isma bedelo wixii uu doonaya uu garanaya go-aankiisa iyo ra'yigiisana ma bedelo qofka waxa la dhahdaa il est immuable tusaale kale wuxuu yidhi Dieu est immuable ilaahay isma bedelo waa ilaahay subxaana wa tacaala isagu sida bini'aadanku way isbedelaan kolba xaalad kolba dhibaato kolba si ayay noqdaan adduunyada wixii cadceed hoos joogo dhanna saaba isku bedelaan laakiin isagu ilaahay immuable isma bedelo kelmadan kale waxa weeyaan pertinent waxay ka dhigan tahay ku habboon ku fiican qui est approprié tusaale wuxuu yidhi ta question sur la glycémie est pertinente su-aashaada ku saabsan arrimaha macaanka aad bay ugu habboon tahay yacni way fiican tahay waa su-aal loo baahnaa ayay ka dhigan tahay septic waxay ka dhigan tahay shaki ku jiro oo weli laga shakisan yahay qui doute tusaale wuxuu yidhi je suis sceptique face à sa promesse de venir demain waxaan ka shakisan yahay oo weli shaki igaga jira inuu imaado beritoole ballanta uu sheegayo marka ninkan ballantiisa beritoole waaban ka shakisan yahay buu leeyahay kelmadan kale waxa weeyaan réticent waxay ka dhigan tahay ka cagajiidis yacni inuu qofku sameeyo uu kala hayaa uu shakisan yahay uu ka joogaa waxa tusaale wuxuu yidhi il est réticent à l'idée de changer de poste ninkan weli wuxuu ka shakisan yahay uu weli ka cagajiidayaa inuu shaqadan iskaga tago ama meeshan uu ka tago weli uu ka cagajiidayaa oo go-aankan uu gaarin marka il est réticent kelmadan kale wuxuu yidhi redondant waxay ka dhigan tahay soo noqnoqosho wax soo laalaamay qui se répète inutilement wax soo laloqonaya tusaale wuxuu yidhi dans ton tagiskanaad qortay c'est mot et redondant kelmadan way soo noqonaysaa aad bay kelmadani ay tagiska ama waxaanaad qortay way ku soo laalaamaysaa marka redondant soo laalaamasho wey kelmadan kale u dambaysa waxa weeyaan altruiste waxay ka dhigan tahay qofka samafal kale ee dadka u samafala ee dadka inuu wax u qabta jecel tusaale macnaheedu wuxuu yidhi qui se soucie du bien-être des autres de façon désintéressée waa qof ka fikira dadka kale wanaagooga isagoo oo waxba ka doonin tusaale wuxuu yidhi c'est une personne altruiste qui donne beaucoup aux patients ninkan waa nin wanaagsan oo dadka u samafala aad buuna dadka masaakiinta wax badan u siiya oo uu samafalaa saabay ka dhigan tahay intaabuu darsigeenu ku egyahay haddii aad ka heshay ka iloobin inaad saartid like-ga iyo commentiga ciao